ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخوتي في العقيدة إلهي سبحانه وتعالى sida san hayna waafajiyo waxaan isku dayi doonaa inaanu xoogaa in sha allahu tacaala kooban ka nidhaahno ee qabasaat min qisati yuusuf ama iftiinno ama tusaalayaal ka mida qisada nebi yuusuf sawaad ogsoonteen qur-aanka waxaa ka mida suuratu yuusuf la yidhaahdo waxaan filayaaba nebi yuusuf meel kaloo qura mu'min ali fircawn markuu ka warramayo quroo kalaaba qur-aanka meel kale lagaga sheegay waa qiso ka gedisan qisaska qur'aanku sida kale ay u qoran yihiin waa qiso bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii suurad qura ku wada jirta meel qura ilaahay subxaana wa tacaala kusoo wada arooriyey waa qiso ku bilaabanta riyo kuna dhammaata riyada fasirkeedii waa qiso wax badan laga faa'idi karo weliba wadcigan aynu nool lahay iyo casrigan dambe la joogo waa qiso runtii fawaa'ido aad u tiro badan laga fahmi karo walidalik ayaa bacd ala'imma imaam ibn اlqayim fi kitaabihi daa waxuu ku tilmaamayaa suuratu yuusuf alfa faa'ida baa ku jira buu leeyahy haddii ilaahay fursadi siiyana buu yidhi kun faa'iide ayaan ka qori doonaa laakiin maynan arag waxuu ka qoray akthar maa qiil waxaan aragnay طulaab alcilmi almucaasiriin in ka mid ah oo 100 faa'iide ka tirinaya moxamed saalix almunajid oo 100 faa'iide ka tirinaya qisada tani waxaa la yidhahdaa suuraddani waxay nebiga ku soo degtay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wakhti oo aada u dhibanaa wakhtiga loo yaqaano caamil xusni aw bacdah ayay soo degtay bay yidhaahdaan wakhtigii uu nebigu waayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh sanadkiisii daakhiliga ahaa iyo kii khaarijiga ahaa ee basharka ka mid ahaa yacnii waxaa geeriyooday adeerkii abi aalib oo tolliimo ugu hiilinayay oo aan agtiisa loo soo maraynin waxaa isla sanadkaa geeriyooday haweenaydii wax walba la qaybsatay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee uu nebigu intuu noolaaba xasuusteeda u hayay ilaa iyo ay caayishi iyadoo geeriyootoo maqan ay caaisha ka qiiroonaysay ama ka hinaasaysay siduu nebigu u hadal hayo salawaatu ullahi wasalaamu calayh khadiija bintu khuwaylad ridwaan ullahi calayha oo ka mid ah kuwuu nebigu yidhi dumarka dhowr baa dhammaystirmay ay ka mid ahayd khadiiji wakhti aada ugu adag oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi cid waliba soo diiday oo uu daa'if tegay oo ka soo noqday oo dhib oo dhan la kulmay ayay soo degtay baa la ydhahaa qisada tani iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu nebiga u tilmaamayo in ambiye isaga ka horaysay oo rusushii ilaahay soo diray ka mid ahayd imtixaanaadka lala wadaago waa suurad runtii suwar badan oo imtixaana ka sheekaynaysa waxay ka sheekaynaysaa nebi la itixaamay
oo kalgacalkii aabihii lagu itixaamay. waxay ka warramaysaa imtixaan kale isagoo ku dhacay oo walaaladii kayd u degeen oo god ku rideen. waxay ka warramaysaa iyadoo haweenay isku dayday inay kufsato. waxay ka warramaysaa iyadoo la xidhay oo xabsi galay oo jeel uu ku jiro. waxay ka warramaysaa imtixaan tiro badan leh iyadoo madaxnimo lagu itixaamay oo ummadda madax u noqday. waxay ka warramaysaa runtii fitan tiro badan oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala shiddo keenaba haddana faraj ilaahay uu furayo subxaanahu wa tacaala inna maca alcusri yusraa ay ku gabagaboobayso isagoo fitankaasi oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyey. idan qisada tani waa qiso runtii meelo badan oo laysdul taaga leh. waa suurad xataa tarkiibkeed qaabku u yaalla ay ka gedisantay. waa suuradda qudha ee 4 riyo kusoo wada aroortay iyadoo aan rajaynaya qur-aankaba in 7 riyo ku jirto. yacni nebi ibraahim riyadiisa iyo suurat alfatxi ta nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qisatu beder suuratu ali cimraanta ku saabsiisan iyo 4 riyo oo ku wada jira fii suurati yuusuf. isagoo riyooday, 2 jeelka kula jiro riyooday, boqorkoo riyooday, 4 riyo oo ku wada soo arooray qisadatan. qisada tani runtii waxyaabo tiro badan bay leedahay. ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya laqad kana fii qasasihim cibra liuli lalbaab ma kana xadiidan yuftara. ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadatan waxyaabaha tirada badan le uu kaga warramayo waxaan jecelahay caawa inaynu deris ka mida qaadanno. haddii ilaahay nolosha fusxa ka bixiyo oo ay suurto gasho jawaanib kale mar kalaynu ka eegi doonaa. waxaan ka eegaynaa haddii alla yidhaahdo subxaanahu wa tacaala nebi yuusuf gurigii uu ku soo koray oo dhibi ka dhex dhacday oo mashaakil qabsaday oo kala durkay oo kala lumay iyo xalkii loo helay. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya laqad kana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin. nebi yuusuf iyo walaaladiiba waxa idinku sugan baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala aayaad baa ugu sugan lisaa'iliin. waa qiso markaa u baahan daraaso aada u tiro badan leh. qisadatan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa nebi yuusuf iyo walaaladii inay aayaad ku sugan yihiin. maxay sameeyeen nebi yuusuf iyo walaaladii? ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa id qaaluu layuusufu waakhuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusba ina abana lafii dalaalin mubiin اqtuluu yuusufa aw iطraxuuha arda yakhlu lakum wajhu abikum watakunuu min bacdihi qowma صaalixiin. ilaahay wuxuu inoo sheegayaa subxaanaه wa tacaala waxaa aayaadku ku sugan yihin baa la yidhi markay yidhaahdeen nebi yuusuf iyo walaalkii ayaa aabba inaga jecel yihi innagoo annaguna aanu nahay bay leeyihin cusba koox aanu nahay. ina abana lafii dalaalin mubiin aabba bay leeyihin baadi cad ayuu qadiyaddan kaga sugan yahay. mas'alada tanna aabbo ma asiibin bay leeyihin waayo 2 qof in cusba koox dhan laga jeclaadaa waa miisaan aan saxsanayn xasba iddicaa'ihim. awalan nebi yacquub waxay ku eedaynayaan inuu yuusuf iyo walaalkii ka jecel yahay. horta jacaylku qalbiga dega ilaahay baa xukuma subxaanahu wa tacaala qulubta bini aadamka. qofka muslimkaa waxaa saarani waa inuu cadaalad sameeyaa alcadaala. laakiin qalbigu cidda uu raacayo ilaahay baa shaqo ku leh. ilmaha aad dhashay inaad u cadaalad samaysaabaa korkaaga saaran. laakiin basharku haddana ilmaha uu dhalay qalbigiisa way ku kala wen yihin. inaad u cadaalad samaysiyo inay qalbigaaga ku kala weynaadaan waa 2 kala gedisan. nin carbeed oo reer miyaba waxaa la yidhaha carruurtaada ayaad u jeceshahay kolba kii ugu yar ama baahi qaba buu yidhi. yacni un odaygiiyo islaantu hadiyo goor waxa laga yaabaa ka yar unay siitidaanka ugu yar oo isaga loo dareemayo in dacf iyo dhibi hayso oo ay kaa soo dhoweeyaan. asbaabo badan baa keena in carruurta la kala jeclaan karo. waxaa laga yaabaa inay ku kala dheganugul yihiin. midna markuu yeedhaada maqlo inuu hooydu ka soo horrayso oo kuu yeedhayo. midna waxaa laga yaabaa adigoo la hadlayaba inaanu dheg kuu raaricin. idan inaad u cadaalad samaysaa waa shay. kalgacalku laakiin waa masalo kale. walidalik baa nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh
haweenkiisa wuu cadaalad samaynayay laakiin wuu kala jeclaa haddana dadka ayaad u jeceshay baa la yidhi caaisha buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma qarsaninba dadka ayaad ugu jeceshay markii la yidhi caaisha ayuu yidhi dabeetana su-aal kale ay ku celiyeen wuxuu yidhi aabaheed idan kuwa ugu jeclaa wuu sheegay laakiin haddana wuu cadaalad samaynayay markay cadaalad timaado oo isagoo buka ayuu wuxuu lahaa caawa xaggaan ahay isagoo xanuunsanayaa la siday nebiga xataa mabiidka inuu guri u hoydo wuxuu tijaabinayey isagoo buko oo la sido oo xanuunsanaya in garbaha la galo habeenba meel seexdo oo yidhaahda inaana caawa xaggaan ahay uu yidhaahdo la yidhahdo guri heblaayaad ku beegantay markii dambe ay haweenkiisii u naxariisteen oo ay dareemeen nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh maadaama oo caaisho jeclaa inuu ku bukaankiisa lagu baxnaaniyo guriga caasho la dhigo oo halkaasi lagu baxnaaniyo yani waxaan uga jeedaa jacaylka qalbiga ah waxyaabo badan baa keena qofku inuu cid jeclaado amaa waajibka qofka saarani waa inuu cadaalad sameeyo yacquub may ahayn waadna kala jeceshaba in lagu eedayo xataa hadday jirto mar hadduu cadaalad samaynayo dembi maaha inuu qofku kala jeclaan karo laakiin ilmo yacquub waxay ismoodsiiyeen arrin ah yuusuf iyo walaalkii in loo kalgacal badan yahay oo yacquub u kalgacal badan yahay arrintaana waxay ku tilmaameen yacquub inuu baadinimo kaga sugan yahay waase iyagu sheegteen waxa uu qur-aanku markan inoo tilmaamaya masaa-isha amraad alquluub xanuunada qalbiga ku dhacaya siday khatarta u yihiin qofku hadduu qalbiga ka bukoodo oo qil iyo xaqd iyo xasad iyo buqdi iyo waxaasi hadday qalbiga galaan inay qoys xataa mujtamac ballaadhan ka kaalayo qoys inay dumin karaan oo ay kala dareerin karaan waxay masaladani tilmaamaysaa ilmo yacquub mas'aladani xadka ay la gaadhay waxay la gaadhay inay soo jeedinteedu noqoto uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu arda yuusuf in la dilo yuusuf jariimadu galay waa maxay ma dembuu galay xataa haddii yacquub buu ahaa ka wax jeclaadee yuusuf isaga waxbaba ma samaynin laakiin markay dadku xaasidnimada iyo xaqdiga iyo qalbigu markuu xumaado waxaa ku dhaca qofka indhala-aan mawaasiinta ka lunta sida wax loo qiimeeya xataa ma garta u walidaalika ilmo nebi yacquub waxay qaateen fikradda ah in la dilaba yuusufkaa yar ee walaalkooda ee aan waxba geysanin in la dilo go-aanka ah bay qaateen waxay culammadu yidhaahdaan qofku hadday cadhadu ku biirta bay yidhaahdaan xiqdi bay isu rogtaa xiqdigu hadduu sii biira bay yidhaahdeen xasdi buu isu rogaa idan waxay yidhahdaan culammadu waa maraatib isdaba taalla alcadaawa waalbaqdaa min alghadab bay ka soo bilaabantaa bay yidhahdaan dabeetana xiqdi bay tagtaa kadibna xaasidnimay tagtaa xaasidnimaduna waa qofka inaad balaayo un la jeclaato adigo aan adigu waxba ka helaynin qolada tani ilmo nebi yacquub waxay qaateen go-aanka ah walaalkood inay dilaan ama se fogeeyaan waxay kaloo qaateen aw iطraxuuha ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunuu min bacdihi qawman saalixiin bal aayadda u fiirso waxay leeyihiin aan ka takhallusno kan yar oo dillo ama fogayno oo lumino dabeetana shayطaanku waa cajiib insaanka markuu jariimada gelayo wuu u fudaydiyaa jariimadan laba sababood buu ku fudaydiyey kow marka hore wuxuu ku fudaydiyey natiijada ka ratibmaysa inay wanaagun tahay oo ah marka kan yar iyo walaalkiiba laga takhalluso waxa soo baxaya bay yidhaahdeen yuusuf haddaynu ka takhallusno waxa ka soo baxaya waxa weeyaan bay leeyihiin alamri alwaaqic inuu yacquub u hogaansanaado oo hadda inuu innagayna jeclaado waa wasiilo jacaylka yacquub lagu raadinayo dilku dil baa waxaa lagu raadinayaa maxay jacaylka nebi yacquub alamri alwaaqic bay leeyihin odagu waa isaga hogaansami doonaa markaynu ka takhallusno yuusuf cid kale ma taale de inagunba alabnaa'i alwaxiidiin lilab aabbaha yacni carruurta qudhow haystaa waa innaga marka dee aabba carruurtiisa kama maarme wayna jeclaan doonaa marka waxay leeyihin yakhlu lakum wajhu abikum aabba wejigiisa keli inoo noqonayo aynu ku keliyaysanaynaa shayطaanku markuu wax sawirayo ilmo nebi yacquub badiihiyaad waxyaabo fudud fudud oo aad u tiro badan buu ilowsiiyey wuxuu ilowsiiyey ma is odhanin
war arma jariimadiinuba muuqataa haddii afashishaan oo jariimadaba la ogaado yacquub miyuu jeclaan lahayaa markaa markay inankiisii dilaan ismay weydiinin aabbahood maxaa ku dhici doona jacayl badaayaar buu indhabeelaa oo mushkilad kale qabsataa ismay weydiinin mu'aamarada ama jariimada sida loo fulinayaa armay fuliba weyda oo sidii aad ugu tala gashay u socon weyda ismay weydiinin yacni wixii khayaaraad jiray oo dhan ixtimaalaad jiray oo dhan shaytaan wuxuu ka tusiyey mid quroo ah ismay weydiinin armuu ninkani dhimanba waayo idinku soo noqda isagoo madaxa iyo waxaa la kulantaan waxaasoo dhan tirada kumay darin waxay ku xisaabtameenuun hadday jac iyo jac kaga siiyaan in kan yarina tegayo odayguna uu jeclaan doono arrinkuna uu hagaagi doono weliba waxay intaa ku dareen dee toobaduna ma foga bay yidhahdeen isaga markaynu ka takhallusno markaan baynu xajka tegaynaa soo weysaysanaynaa waa masala fudud watakunuu min bacdihi qawman saalixiin baa la leeyahay waxaa la sii bilaan garaynayaa marka isaga laga takhalluso kadib in la toobad keeni doono waa toobaduna dee tajubu maa qablahaayo inay fiicnaan doonaan saasaa bilaan lagu dhigta mas'aladani waxa ay ku tusinaysaa marka insaanku marka uu dariiqa qaldan maro jaraa'imta sida uu u sawiraa ee uula fududahay waxa ay rabaan inay dilaan waa walaalkood xanuun qalbi unbaa ku dhacay oo colaad ah kay colaadda ku fulinayana ka takhallusayaan waa walaalkood waxay colaaddaa ku raadinayaanna waa aabbahood inay keli ku noqdaan oo uu jeclaado ayay ku raadcaynayaan dembiga xagga alle ka dhici doonana walaalkood isma weydiinayaan isaga iyo arrinkiisa laakiin dembiga xagga alle ka dhici doonana inay ka toobad keeni doonaan ra'yigan bay qaateen ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qaala qaa'ilun minhum laa taqtuluu yuusufa waalquuhu fii ghayaabati اljubbi yaltaqitu bacdu sayaara in kuntum faaciliin ilaahay faraj buu u furay nebi yuusuf oo mid yagii ka midun baa yidhi weer ha diline meelaha goda iskaga tuuro dadkaa socotada iyo waxaasi ha qaataanoo hayna dhaafaane bacda muxaawalaat sida qur-aanku tilmaamayo suuradda ma tafsiirayno laakiin meelahaynuu dan leynaynu tilmaami doonaa bacda muxaawalaat aabbahood inay isku dayaan inay ku qanciyaan oo u warramaan oo yaa abaana maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wainaa lahu lanaasixuun arsilhu macana gadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun qaala inii layaxzunanii an tadhabuu bih waakhaafu an ya'kulahu الdi'bu waantum canhu gaafiluun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka warramay waxay dood soo samaysteen iyo siday rabeen inay yuusuf u qaataan iyo aabbahood siduu u shakisnaaye uga warwarsanaaye kolba meel isu taagaya iyana isku dayeen godku istaagaba inay ka saaraan oo ra'yigooda ay ku fuliyeen qadiyaddii waa fuliyeen walaalkood god bay ku rideen nebi yuusuf wuxuu la kulmay mashkilad ah colaada inay qabsato oo cid kaa foge hadday ku colaadiso waad qaadan kartaa laakiin kii kula dhashay inuu noqdo ka ku dilaya waxaad sawirtaa yuusuf oo ilmo yara oo walaaladii daclada hayaan oo meesha loo wada ay tahay in la tuuro oo dabeetana inta god lala tegay la sii wado oo aan weliba godka si caadiya loogu rodayna khayaabat aljubbi saa ilaahay tilmaamayo meel madow oo wax qariso oo god ka sii mida la rabo in la sii geeyo oo arkaya walaaladiiyo intay isu kaashadeen midba dacal hayo god lagu sii ridayo haadihi suura maxay maskaxdiisa ku reebaysaa ilmaha yar ee haddana dareemaya iyagoo intay halkaa dhigeen aanu naxariisan ee kaga dhaqaaqay oo meesha kaga tegay qisada tani waxay tilmaamaysaa marka bukaanada qalbiga ah ee xaasidnimada iyo xaqdiga iyo qilliga iyo waxa la nooca ah hadday bulsho degaan oo mujtamacaadka dhexdooda ay degaan mujtamacaasi inuu noqdo mujtamac cafina mujtamac uraya oo burburaya mujtamac kala lumaya inuu noqonayo natiijadii falkan ay sameeyeen ilmo yacquub waxay noqotay in aabbahood inay keli ku noqdaan oo jeclaado daaye ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamaya wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim in indhuhu caddaadeen murugo iyo tiiraanyo daraaddeed
inuu taagnaa inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah. odaygii taasaa ku dhacday. waxay sababtay walaalkood oo yuusuf inuu god galo oo dabeetana godkii laga qaado oo kooxi kaxaysato oo dabeetana alkariim ibnulkariim 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 isagoo ah nin 3 nebi ku abtirsada isagoo ah in dabeetana la addoonsaday alxor ibnulkariim isagoo ah in la addoonsaday in suuqa silaca wax lagu iibiyo la geeyay washarawhu bithamanin baksin daraahima macduudatin wa kaanuu fiihi min azaahidiin. ilaahay tilmaamayo suuqa wax lagu kala gato ee iga gadyo kaa gadi maayo intaa iga dhaniyo iga sii isagoo ina nebiyo nebi dhalo nebi dhalo nebi dhalay inuu suuqaa tegay. waxaa qur-aanku tilmaamayaa inuu addoonsigaasi ku dhacay. waxa uu tilmaamayaa inay haweenaydii hungurayso isku dayday inay kufsato. waxa uu tilmaamayaa in xabsi lagu riday. waxaasoo dhibayo uu yuusuf maray. aabbahooday jacaylka ka rabeenna waa indhabeelay. murugo iyo tiiraanyo ciil buu la indhabeelay. waxaa ilaahay tilmaamaya inuu leeyahy inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah. inuu leeyahay fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun. halkaa odaygii inuu taagan yahay waxa ay tilmaami kartaa sida caa'iladana yara noqotay markii uu yuusuf wiilkoodii ka labaad rabay inuu ka qaato siday dareemayeen aabbahood. markii hore waxay lahaayeen yakhlu lakum wajhu abiikum, laakiin kii labaad markii la qaadayay maxay lahaayeen ina lahu aban shaykhan kabiiran fakhud axadana makaana. waayo waxay dareemeen aabbahood kii hore wixii ka qabsaday iyo wixii dhib ka gaadhay bay lahaayeen oday weyn oo dhibi gaadhaysa buu leeyahay annaga midka ay nagu bedel bay lahaayeen. waxaa dhacday inankii ugu weynaa say mufasiriintu sheegaan inuu yahay kan leh falan abraxa alarda xataa ya'dana lii abi aw yaxkuma allahu lii wahuwa khayru lxaakimiin. kii weynaana inuu dhan u lumo. waxaa dhacday qaybi caa'iladii guriga qura ku wada noolayd yuusuf good buu ku dhacay. odaygii waa indhabeelay nebiyullaahi yacquub ahaa. wiilkii labaad waa kii farsamada lagu qaaday ee isna baxay. kii weynaa isna waxaa ku dhacay inuu yidhaahdo mar hadday waxaasoo dembiya laga galay aabbo dib ugu noqon maaye dhulkaa ilaahay baan iska kacaya waa iska soconaya. isna dhan kalu u aanbaday. intii soo hadhiyo odaygii miyay isku fiican yihiin? maya waa kuwiiyana ku lahaa tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin. kuwii soo hadhayna waa kuwii nebi yacquub ka dul lahaa ka zuuli maysid inaad yuusufun kolba xasuusato ilaa aad ka halaagsanto amaad ka baaba'did. reerkan maxaa ku dhacay? maxaa reerkan shataadka ka dhigay? su-aashaan idin weydiinaya markaa waxay tahy haddii mujtamac yar oo aabbiyo hooye iyo ilmo ay dhaleen iyo guri ka kooban oo weliba guri nebi uu yahay oo tarbiya nebi ku soo barbaaray, haddii marka bukaanka qalbigu uu dhaco ay sidan u kala lumayaan, markay xaasidnimadii iyo colaadda iyo mushkiladdu timaado ay sidan noqonayaan, guriga weyni ama ummadda muslimka ahi ama bulshada muslimka ahi ama qowmiyadda muslimka ahi haddii xanuunkani dhex gala sida iyaduna u ekaanaysaa. yacni guri baa shataadkiisii noocaa noqday. guri ayaa shataadkiisii iyo burburkiisii noocaa noqday. waxaan u malaynayaa ummadda soomaaliyeed inaan looga warramaynin sida loo ekaado marka la jabo, marka la colaatamo. soomaaliya iyadoo iska joogtuunbaa qola tidhi haddaynu xagg iyo xagga kaga dhufanno oo dabeetana watakunuu min bacdihi qowman saalixiin yakhlu lakum wajhu abiikum bay raadinayeen. meesha inay fuulaanun oo iyagu inta kale dareeriyaan. waxoogaaga dhintana dee waynu toobad keeni doonnaa unbaa la lahaa. watakunuu min bacdihi qowman saalixiintaa la taagnaa. wa nafsi alqisa laakiin min khilaali beytin kabiir. waa qiso aan ku boobno waa ka takhallusaynaa inta tan qoladan meesha yaro bursatay ee jeclaysatay ee dheeraadka ee jacaylkii qaadatayna aan ka dhicinno. kadibna maxaa soo baxaya? waxaa soo baxaya bay leeyihiin yakhlu lakum wajhu abiikum watakunuu min bacdihi qowman saalixiin. siday u eg tahay maanta haddii markii hore dadku ay fahmi lahaayeen waxaan u malaynayaa inaan malaha taladaa in badan dib loogu noqon lahaa. iminka maanta cid badani waxay leeyihin talow yaa haraggeed inagaga celiyaday soomaalidu ka sheegayeen. ninkii neefka qale cidiba wax ka iibsan weyday ilaahu yaa maruun haraggeedii ku celiya buu yidhi. yacni
siday u taallo haddii maanta talada dib loogu celin lahaa oo waqti dambe ay taladu joogi lahayd waxaa laga yaabi lahaa inaan dad badani dhiiradeen waxay ku dhiiradeen markaa waayo shaytaan wuxuu tusiyo keliya mas'ale ah in kooxda meesha markaa joogto inta laga maroorsado koox kale inay fuuli doonto wax badan oo sii dhaci doona inaanay jiri karin wajhul ab in la heli doono dabeetana watakunuu min bacdihi qawman saalixiintuna inay ka dambayn doonto waxaan leenahay shataadkaasi inay dunida ku firidho oo inamaa ashku qaar le ay nool yihiin oo ooyaya inamaa ashku bathi wa xusnii ila allah qaar weli le tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa xataa takuna xaradan aw takuna min alhaalikiina ay nool yihiin qaar leh lan abraxa alard xataa ya'dana liabina ay nool yihiin yani mujtamacii soomaali lo odhan jiray noocaas u eegi waxaan baday oo lumay wax weli qoomamaysan oo ooyaya wax weli inta kale hadhay kusii diganayo le tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa ma lcilla idan cilladu waxa weeyaan amraad alquluub mujtamaca haddaan marka hore la ilaalin xagxagashada laga ilaalin waxa isku haya laga ilaalin qalbiga waxaa qofka muslimkaa waxyeelaya laga ilaalin akhiiran natiijadiisu nooca kan bay noqonaysaa su-aashaan qisada markaa uga jeedaa marka kan waxay tahay hal min xal waxayn leenahay aan eegno yuusuf muxuu ku xallilay yuusuf gurigii dib inuu ururiyey suuraddaa sheegaysaa inay dhammaantood isugu wada yimaadeen suuraddaa sheegaysa mal xal baa isweydiinaya maxaa mujtamacaadka muslimkaa maanta caalamulislaami haddaad eegto waa nafsu shay yani soomaaliya qura haddaynu iska dhaafno caalamulislaam oo dhan eegno waa nafsi shay waxaa burburiyo ku dhacay waa amraad alquluubkaasi dadka badh ku dhacay ee intii kalena kala firdhiyay ee nooca kan u galay maxaa xal ah qisada yuusuf suuradda tani waxay culammadu yidhahdeen waa suurat alcifa bay yidhahdaan nebi yuusuf wuxuu ahaa cafiifu llisaan cafiifu lqalb cafiifu ljawaarix waxaan isweydiinaynaa maxaa xal ah waxa xal ah baynu leenahay alcifa dhowrsooni nebi yuusuf laba hal buu sameeyey walaaladii xaasidnimadaasay ku dhaceen xasdiguna ka la xaasidaya intaanu halaagin kuwa wax xaasidayuu sii halaagaa xasdigu markuu dhaco waa wixii ilmo nebi aadanba dee dhex galay laaqtulannaka markuu lahaa waxba uma geysan walaalkii laakiin waa xaasiday uun laakiin kii uu dilaya iska dhaafay isagii baa ilaahay ku tilmaamaya faasbaxa min alkhaasiriin iyo faasbaxa min annaadimiin isagaa ahaa kii murugaysnaa markii dambe noqday nebi yuusuf mas'alada tan wuxuu ku cilaajiyey laba shay ama saddex shay haddaynu idhaahno labada shay mid culammadu waxay yidhaahdaan waa jurxigu nabarku inaanu sii ballaadhan oo ah nabarka in damaqa laga ilaaliyo hadday ceeb iyo dhibid dhacdo dadku isqabto waxa koowaad ee laga ilaaliyaa waxa weeyaan inaan nabarka la sii qodqodin maxaa sii qodqoda nabarka afxumadaa qodqoda afxumada ayaa nabarka qodqoda dadka arkaysaa maalan waxay dhahdaan culammadu nebi yuusuf markii intaa la hafray beenta laga sheegay dumar ay wax u heshiiyeen xabsiga la dhigay isagoo aan waxba samaynin ee boqorkii uriyada usoo dirtay uriyadii u fasiray waa ka wakiil la yidhi ka soo bax jeelka nebi yuusuf wuxuu damcay inaanu bixin ilaa iyo kayskii lagu xidhay laga hadla mooyaane wuxuu yidhi maa baalu niswa allatii qaطacna aydiyahunna nebi yuusuf su-aal buu weydiinaya wuxuu leeya boqorkii u tago fas'alhu maa baalu niswat waxaad boqorka weydiisaa haweenkii gacmahooda googooyey ereygaa maxaa ku jira nebi yuusuf wuxuu xaq u lahaa inuu yidhaahdo haweenkii isku dayay inay kufsadaan wuxuu xaq u lahaa inuu yidhaahdo haweenaydaadii layga taag waayey xaaskaagii layga taag waayey arrinkeedii ka warran wuxuu xaq u lahaa dumarkii hafree beenaalayaasha ahaa ka warran wax haba yaraatee
dhacdada lagu tilmaansaduu tilmaamay bay yidhaahdeen haba yaraatee kama warraminna wixii isaga lagu sameeyey ama wixii loo geystay magacoodna ma sheegin bay yidhahdeen waxay culammadu yidhahdaan cammama walam yusami bay yidhahdeen wuu caam yeelay cid gaarana muu magacaabin bay yidhahdeen muxuu ilaalinayaa bay yidhaahdeen inaanu cidna tajriixinin tajriixa tirada badan leh dadkoo la dhaleeceeyo la caayo oo la maago oo la wadaa nabarka way sii ballaadhisaa qofkoo markuu gafaba aad sii qodqodo farta gelisa halkii uu ka gafayba aad farta sii gelisaa way sii dilaacisaa uun kala fogaanunbay sii keentaa ma keento nabarku inuu soo koobmo oo soo yaraado waxa sababa in laga daayo farafaraynta badan in dulqaad badan dadka muslimiinta ay muujiyaan walidalik muu odhanin nebi yuusuf maa baalu niswati allati raawadna haweenkii aniga i doonay ka warran iyagu weedha isku lahaayeen xataa kumuu odhan وqاla نسوة في الmadينة امرأة العaزيiزi turaawidu fataaha xataa muraawadadii iyagu isku lahaayeen isagu ma sheegin isagu waxa qura uu sheegay waxa weeyaan haweenkii gacmaha isgoogooyey xaalkoodii ka warrama xataa bay leeyihiin boqorkii su-aasha la weydiinayay gabadhiisii meesha kuma soo darin oo ahaydna ta maxay qisaduba ka bilaabantay haweenkii gacmaha jarjaree kalu tilmaamo waar adiga islaantaadi iyo kayskaygii ka warran muu odhan waxaaba laga yaaba laha boqorku inuu cerka u bixi lahaa hadduu intaasoo qura weydiin lahaa intaana ma weydiinin waxaad tilmaamaysa nebi yuusuf sida uu carabkiisa u ilaalinayay fii nafsi suura waxa ay tilmaamaysaa nebi yuusuf oo godkii ka baxay oo mushkiladoo dhan soo dhammaystay oo madaxa ayaa waxa u yimi walaaladii kuwii godka ku riday waa markii uu dabeetana suwaaculmelika loo dhex raaciyey alaabtii walaalkood ee laga soo saaray waxay yidhaahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl iyagoo hor taagan bay hadlayaan waxay yidhahdeen hadduu waxaday kani mid ka horreeyo ay walaalahaayeenoo tuug ahaa baa jiray bay yidhahdeen maxaad yeeli lahayd adigoo boqor ah nimankii ku dilee godka kugu riday inta lagu hor keeno haddana hadday yidhaahdaan kani hadduu waxaday ku ka horreeyo tuuga baa jira nimanaad kiiskii hore ku qaadin oo waxba aanad u sheeganin oo iyagu god kugu rido ku dilo waxaasoo dhan kugu sameeyey oo haddana weli aan kaa hadhina ku masabidaya nebi yuusuf ilaahay wuxuu ka tilmaamay wuxuu yidhi faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu qaala antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun naftiisa wuxuu ku qariyey baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala nebi yuusuf oo aanu cidna u muujinin hoos qalbigiisa wuxuunbuu ka yidhi antum sharu makaana idinkaa ka liito ka meel hooseeya ka shar badan wallahu aclamu bima tasifuun ilaahay baana og waxaa sifaynaysaa hal minkum intaa yeeli kari lahaa ma jira hadday walaaladaa ku dilaan oo ay isku dayeen inay assassination kugu sameeyaan oo ay god kugu rideen oo dabeetana ilaahay madax kaa dhigay oo ad adigoo madaxa qabata iyagiio ay kuu yimaadaan oo haddana weli ay ku eedaynayaan iyagoon waxba kugu lahayn haddana ay eeddaa u taagan yihiin oo ay leeyihiin in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl nebi yuusuf wuxuu ku gaabsaday baa ilaahay leeyay subxaana wa tacala inuu qalbigiisa inta ka yidhaahdo bale waxa kugu filan nebi yuusuf waxay mufasiriintu yidhaahdaan marna iskuma dayin walaaladii inuu masaa'ilkan ku qaadqaado sida daraaddeed markuu ilaahay u baryayay ee ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu gallad siiyey ilaahay uu ka warramayay wuxuu yidhi waqad axsana bii id akhrajanii min asijn wajaءa bikum min albadw min bacdi an nazaqa ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii waxay yidhahdaan saddex masalo hariiba aayadda ku wada jira nebi yuusuf wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ii samafalay markuu jeelka iga soo saaray buu yidhi waxay culammadu yidhahdaan jeelka iyo godka iyoma xumaa jeelku waa meel dad ku nool iyo dad baa la joogay wadakhala macahu sijna fatayaan qur-aanku wiilalbaabu tilmaamay la galay jeelka markuu galay nin dhallinyaro xooggan buu ahaa oo soo koray oo da' soo gaadhay jeelku waa meel dadka cunno lagu siiyo waa kanoo bashar lala kulmo amaa godku kow khayaabat iljubbi baa lagu riday meel madoobo goda baa lagu riday oo fog bay yidhaahdeen aan magaalada iyo meelaha kan ka oolin meel aan raashin iyo cunno iyo waxba toona oolin buu ahaa meel aan aniis iyo cid la gargaarsada iyo
cidna joogin bay ahayd ilaahay markaad manooyinku kuu galay sheegayso waxa la sheegaa dee kuwa waaweyn alla kuu galay waxay mufasiriintu yidhaahdaan wuxuu dhowrayay khaatirada walaalkii walaaladii waxay ku sameeyeen inaanu xasuusinin oo isdhaafiyo dabeetana cadowgii wixii uu ku sameeyay ajeelkii ay ku rideen buu sheegay ee ma sheegin bay yidhahdaan walaaladii halkay ku rideen waxa uu sheegay markaa nimankii colka ahayeene kale meeshay ku rideen iyaga markuu tilmaamay wuxuu yihi wajaa bikum min albadu iyagu xaggay ka yimaadeen markii dambe ee reerka la ururinayay waxay yimaadeen 7 sannadood ee faqriga lagu jiray ee abaartu haysatay ee muu odhanin markii idinkuna caydha noqoteen idinkoo caydha la iikin keenay waayo iyaga abaar baa ku dhacay oo kuwii caydhooba dee dhibtu qabsatay ma sheegin wuxuu yidhi markii ilaahay baadiyaa idinka keenay baadiyu mar lagu barwaaqaysan yahay oo caana iyo hilibba leeyay iyo beer iyo midhaba u leeyay iyo mar lagu haraadanyayba waa jirtaa waa u camimay bay yidhaahdeenoo wuxuu tilmaamay maxay wajaa bikum min albadu muxuu kale sheegay min bacdi an nazaqa shayطaanu baynii wa bayna ikhwatii shaydaan ma iyagu derderay mise yuusuf ma waxbuu ku lahaa dhibtii dhacday oo dhan waxba ma samaynin marnaba isagu wax ma samaynin saa ka muuqata qur-aanku kaga warramayo laakiin isagoo khaatirka walaaladii dhowrayabuu wuxuu yidhi baa la leeyay min bacdi an nazaqa shayطaanu baynii wa bayna ikhwatii markii shayطaan aniga iyo walaaladayna kala dhex galay nasqu shayطaan kaanamaa labadooda kooxood bau ku dhacay oo shayطaan buu eedana saaray wuxuu kaloo ka dhigay labadoodaba inuu dhex maray waxaasoo dhammi waxa ay sheegayaan bay culammadu leeyihin wuxuu rabay lisaanka jariix carabkaagu hadduu noqdo mid dadka muda waxaad tahay qof wax firdhinaya ma tihid qof wax daaweynaya walidalik buu wuxuu iska ilaalinayay walaaladii inuu heshiisuun mar la geli doono oo ay dhici doonto inuu la heshiiyo sida daraaddeed nebi yuusuf dhaqankiisa waxaa ka tirsanaa mushkilada si uu xallilo inuu noqdo mid cafiifu lisaanah carabkiisu mid aanu dadka xaganin inuu noqdo carabkiisu mid aanu dadka xaganin inuu noqdo dhibta iyo nabarada iyo boogaha dhaca waxa sii balaaliya gabayada iyo kaftanada iyo waa isjareexaynayna Soomaalidu sheegto jareexadu de waa jareexa waa tajriix waa ismudaynaa la leeyahay waxaasi waxay sii ballaadhiyaan maxay bukaankii idan waxaan leenahay nabi yuusuf si uu reerkan u ururiyo awal shay uu adeegsaday waa maxay wuxuu ahaa yuusuf cafiifu lisaan lisaanka iyo cafiifnimadiisu hal qisaan nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh idinka tilmaamaya xadiidka wada taqaaniin ee saxiixayn ku yaala riyaad saalixiin ku yaala macruufka ah yahuud baa nabiga u timi iyadoo caayishina fadhida dabeetana waxay ku yidhahdeen assaamu calaykum assaam geeriyo korkaaga ha ahaata bay nebiga ku yidhahdeen intay u yimaadeen waxay iska dhigayaan inay salaamayaan oo assalaamu calaykum bay laamkii ka boodeen dabeetana assaamu calaykum bay yidhahdeen geeriyo korkaaga ahaato waa goorma waa nebigoo xaaskiisii la fadhiya salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa la soo doontay adyad iyo gardarro inta lala soo doontay ayaa haddana la salaami maayo la habaaraya oo la leeyahay assalaamu calaykum caaisha waa cadhootay waxay dareentay yuhuuddan khubudkeeda iyo xumaheeda iyo nebigii ilaahay waxa ay kula hadlayaan dabeetana waxay tidhi wacalaykum assaamu wallacna idinka geeri iyo nacdashaa laba korkiina ha ahaata bay ku tidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku yidhi caaishaay mu'minku ku af xun maaha ku faaxish iyo mutafaaxish midna maaha buu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh caaisha way dooddo waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo miyaad maqlayn waxay ku hadlayaan waxay tidhi malaa nebigu saani uma maqal warkay qoladani sheegtay wuxuu nebigu ku yidhi waan maqlaya aniguna waxaan ku idhi wacalaykum xataa wacalaykum assaamu intay yidhaahdeen in leeg inuu yidhaahdo wuu iska diiday wuxuu ku koobsaday oo qura maxay wacalaykum ayaanana idhi buu leeyahy idinna korkiina ha ahaato haddaad salaan sheegteenna korkiina ha ahaato haddaad wax kala sheegteenna korkiina ha ahaato mujarad xataa inuu lafdigii soo celiyo ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ka gaabsaday walidalik buu wuxuu leeyahy wacalaykum assaam faqad maxay taasi tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ah ee murabbiga ah ee la rabo inuu dad tarbiyeeyo kobciyo waxa laga rabo carabkiisu inuu ahaado oo ah inuu muslimiinta hadduu nebi maxamed yuhuudda nabadgeliyay muslimka maxaad u malaynaysa
waxa ka nabadgelaya oo caynkan ula dhaqmaya hadduu yahuudi yahay fama baalu lmuslimiina xuquuq dheeraada kugu leh idan waxaan leenahay awal shay uu adeegsaday nebi yuusuf si uu mas'alada tan u daweeyaa waxa weeyaan carabkiisu ilaaliyay ثاني shay baan tilmaamaya shayga labaad ee uu nebi yuusuf adeegsaday waxa weeyaan mas'alat alcaf alcifa waa tii hore wa ثaaniyan alcaf inuu dul qaatay oo iska cafiyey oo dhaafay walaalihiisii waxa uu geystay markuu su-aasha weydiiyey yidhi hal calimtum ma facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun war bal ka warrama markii yuusuf waxaa ku samayseen laakiin waa uu cudurdaaraya wuxuu leeyay markii ay jaahiliinta ahaydeen qaaluu ainaka la anta yuusuf oo ma adigaaba yuusuf ay yidhaaheen waa markii la isbaranaya koowaad ainaka ma adigaa yuusuf ah qaala ana yuusufu wahada akhi qad mana allahu calayna inahu man yataqi wayasbir faina allaha la yudiicu ajra almuxsiniin qaluu tallahi laqad aaharaka allahu calayna wain kuna lakhaati'iin qala la tahriba calaykum alyawm yagfir allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin markay yidhahdeen maadaa yuusufa wuxuu yidhi anna yuusufaan haykanna waa walaalkay ilaahay baa nagu galladaystay buu yidhi waxaasoo nimca ah inahu man yataqi wayasbir ninka labadaa isku darsada alla ka cabsi iyo sabir qofka isku darsadaa dunida ma hooga buu leeyahy ilaahayna dadka samaha sameeya ma hoojiyo qaaluu tallahi laqad aaharaka allahu calayna ilaahay baan ku dhaaranay alle waa nooga kaa roonaaday bay leeyihin wain kunaa lakhaati'iin annana waa gafsanayn wuxuu ku yidhi laa tahriba calaykum canaaniba korkiinna maaha garnaqsi iyo warkaasi ma jiro wuxuu leeyahy canaaniba korkiinna maaha ee yakfiru allahu lakum alla dembigiinna ha dhaafo canaani korkiinna maahee alla dembigiinna ha dhaafo mas'alat alcafwi waalmagfira waalsafx waa masaa'ilka maanta yar ay muslimiin badani ilowday maalin haddaan nin wax isku qabateen beraanu kaas qabanaydunbuu hayaa xataa hadduu kayska cafiyey hadalka dayn maayo cafin maaha haddaad weli waddo unoo taagan tahay beri waxaa igu sameeyey ninkaas beriba waxaa ii galay beri haddaadun weli sheegaysa waxba maad cafinin waayo weli waxaad daba taagan tahay un maalin waxuu ku yeelay asalkuna waxay ahayd qofka muslimkii inuu wax cafiyo cafwigu waa masale muslimiintu ay wakhtigan dambe aada u ilowday ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu sifaynaya jiilkii saxaabada ahaa ee salafi lumma ah ee dadkii lagu dayan karayaya ayaa ilaahay qur-aanka ku sifeeyey lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaa'ika hum asaadiquun waxaa la sifeeyey muhaajiriintii ilaahay dartii uu soo hijrooday uu jihaatamay ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa jacaylkiisa ka doortay nolosha oo dhan uu jihaatamay ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa jacaylkiisa ka doortay nolosha oo dhan ulaa'ika hum saadiquun baa ilahay yidhi kuwaasi waa kuwii iimaankooda ku run sheegayay ansaarna ilaahay waa sifeeyey waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim wla yجiduna fi صdurihim xaajaة mima uutuu wayu'hiruuna عlى أnfusihim walow kana bihim khasaaصة wman yuuqa shuxa nafsih faulaa'ika hm اlmuflixuun labadii kooxood ee muslim ugu mudnaa waa labadaa kooxood waa saxaabadii nebiga kooxda saddexaad ee labadan kooxood ka daba tagtay waa kuwee ilaahay sifo ku tilmaamay u fiirso waa sifo dadku maanta wada hilmaamsan yahy laakiin naddaci salafiya salafinimadan wada sheeganaa haddana sifadii loo sheegay kuwaa taabica waa salafku waa mas'ale dadku inta badan uu hilmaansan yahy ilaahay wuxuu leeyahy wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquluuna rabbana اغfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan waxa ay alle subxaana wa tacaala u ku tilmaamay wاladiina jaaءuu min bacdihim kuwaa gadaashood kuwii yimee muslimiine dambe waxa ay leeyihin baa ilahay yidhi rabbana اغfir lana walikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim waxay leeyihin ilaahay ow annaga iyo mu'miniintii naga horraysaba u naxariiso kuwii iimaanka nooga horreeyey annagaba u naxariiso
waxay kaloo leeyihin ilaahow mu'min dhammaantii qalbigayaga hilli iyo xasdi iyo xaqdi iyo waxaa hawgelin qalbigayaga ilaahow noo saafi yeel bay leeyihin idan sifati salafiya caqiidadii saxiix ahayd iyo diintii wanaagsanayd waxa ay leedahay dhaqan suuban iyo suluuk salafiya jira oo qofku qadiyati tawxiid oo qura inuu tajriidiye maaha ee waa inay dhaqan noqotaa waa inay dhaqan iyo diin soo baxdaa dhaqan iyo diinta laga rabaa maxay tahay waxa uu ku tilmaamaya alla subxaana wa tacaala inuu yahay dadka mu'miniintii mid ay ka nabad galaan oo aan qalbigiisa wax xiqdi iyo xaasidnimo iyo dhibtoona ugu haynin idan waa masaladuu ku xalliyey mushkiladii jirtay oo dhan nebiyullaahi yuusuf salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaan leenahay waxa qur-aanku ina baraya waana ahlu kitaab baa ilaahay wuxuu leeyahy wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq ilahay ahlu kitaab buu ka warramo waxaa la yidhi ahlu kitaab qayb ka midi kaiir min ahli lkitaab baa ilahay yidhi waxay jecel yihin inay diinta idinka saaraan maxay idinka saarayaan xasadan min cindi anfusihim baa ilahay yidhi xaasidnimo daraaddeed weliba baa ilaahay leeyay min bacdi ma tabayana lahum alxaq markii uu xaq u caddaaday kadib ayay haddana rabaan inay diin la'aan idin badaan markaasaa ilahay wuxuu nabiga ku yidhi facfu wasfaxuu xataa ya'tiya allahu biamrih ina allaha calaa kulli shayin qadiir haddii la leeyahay ahlu kitaab facfu wasfaxuu muslimka maxaa laga yeelaya bukaankan qalbiga galaa isagaa mushkiladdii maxaa daweeya qoladan biologiga iyo cilmigan kale ka warrantaa waxay leeyihin cadhadan tirada badan le iyo xaqdiga waxa kani kaad u cadhaysanta isagu uu caafimaad qabaa aduunbaa sii bukooda bay yidhaahdeen bukaanku aduunbaa buku hayaa bay leeyihin adaa neerfaha u kacaya digestive systemkaagaa isbedelaya waxay yidhahdeen waa bala aan cidiba kuu ogeyn adaa dhibna laguu geystay mar labaadna adaa naftaada sii dhibaya bay leeyihin idan xataa caafimaadkaaga waxay ahayd inaad iska saafi noqotid si aad u caafimaadida u hagaagtid aduunbaa beladani ku gubaysaaye inaad adigu shaydaanka iska naartaabay ahayd ahlu jannaha ilaahay markuu sifaynaya wuxuu ku tilmaamaya wanazacnaa ma fii suduurihim min hil tajri min taxtihim alanhaar ama wanazacnaa ma fii suduurihim min hil ikhwanan calaa sururin mutaqaabiliin sifada ahlu jannaha loo sheegay dee waa mu'minka unbaa janno galay leene waxaa la tilmaamaya inay yihiin kuwo qalbigoodu maxay yahay saafi duulisa suran aan weligoodisa sii dayn haddaad aragto waa sifada ahlu naarka kulamaa dakhalat ummatun lacnat ukhtaha baa ilahay yidhi kuwa aan weligood kala fuqirin waxaa la yidhi naarta markay kooxi gashaba kooxda kalunbay nacdashaa kuwa markay kooxi kursiga koox ka kicisaba kuwa kalu nacdalaa ee ishayaa uun waa sifada ahlu naarka lagu yaqaano idan waxa uu nebi yuusuf waxa uu adeegsaday alcifa oo aynu carabkiisa ilaaliyo dhowro wuxuu kaloo adeegsaday qoyskaasi si uu soo uruuriyo nabarkii markuu ka ilaaliyay inuu damqo haddana inuu cafiyo laa tasriiba calaykum alyawm yakfir allahu lakum buu adeegsaday masalat alcafw waxaan rabaa inaan idinka daadajiyo bal aan dib u soo noqdo yuusuf oo qurayaan joogi uxud ayaa nabiga ku dhacday salawaatu ullahi wasalaamu calayh uxud waxa ay mushkiladdu u dhacday saynu wada naqaano saxaabo wax ismoodsiiyey oo dabeetana hunguri galay oo meeshii uu nebigu yidhi ka dagaalgali waayo soo yaacay dabeetana muslimiintii waa la jebiyey jab adag baa ku dhacay oo ah kuwuu nebigu jeclaa ama ugu dhowaa xamse iyo inta la dilo in la googooyo oo tamhiil lagu sameeyo beerkiisa dumar calaashadaan in saxaabo badan la laayo rag badan in la oofsado muscab ibnu cumayr iyo raggii madiinaba furtay ee diinta geliyey ee sacd ibnu mucaad iyo mucaad ibnu jabal iyo raggii la yaqaanay diinta ku soo daray waa maalmahay meeshan alla uu ku kaxaystay waxaasoo dhibi markay dhaceen riwaayaadka saxiixi waxay tilmaamayaan saxaabada badh oradkii inay madiina dib u galeen markii la jabay ragga badh baa yaacay oo oradkii madiine galay waxaasoo mashaakila dhacay nebi maxamed wixii oo dhibaa ku dhacay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in ilkaha qaar jajabaan biro ay galaan dhiigguu laga daadiyo salaaddii uu fadhiga ku tukado uu sarajoog ku tukan kari waayey waxaasoo mashkiladii iyadoo dhacday
ayaa ilaahay qur'aan soo dejiyey. ilahay wuxuu leeyay fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr. kuwaa isagoo alla ka warramayo mujtamac baa la rabaa in la wado. mujtamacu afraad maahe waa mujtamac dhan, waa basharo, waa khataa'iin, gafaf badan baa ka dhacaya, nooc walba way isugu jiraan. laakiin dadka qaadadee la rabo inay ummad hogaamiyaan, inay ummad culamo u noqdaan, inay ummad madax u noqdaan, inay ummad kaxayn karaan, waa inay noqdaan dad aan tirsiista aqoonin iyo ficiltanka, waa inay noqdaan dad cafiskooda uu ballaadhan yahay. walidalik baa ilaahay wuxuu nabiga ku leeyahay haddii aan naxariis alle qalbigaaga dejin oo aad tahay mid dabeecad adagoo kakan oo qalbi adag, dadkuba waa kaa yaaci lahaa baa ilahay leeyay walow xaqna sheege. dabeetana ilaahay wuxuu nabiga amray maxay? facfu canhum baa layidhi. kuwaa dagaalkii kaaga baxay iyo kuwaa jabay ee baqaya madiino oradka ku galay iyo waxaasoo dhan baa ilaahay yidhi facfu canhum, dhaaf, iska cafi, adigu cafi baa layidhi. waxaa kaloo la yidhi weliba wastakfir lahum, ilaahayna dembi dhaaf weydii. intaa waxaa kaloo la raaciyay bulshaatiinoo dan baa idinka dhaxayse washaawirhum fi lamri baa ilahay yidhi, weliba la tashana, taladana waxbay ku leeyihin. iyagoo jabka keenay ayaa la yidhi taladana waxbay ku leeyihin. maa macna dalik? waxay sheegaysaa umamka sida loo hogaamiyaa inaanay ahayn nin buug madow sitoo hebel baa beri dambaabay una iyo maalin buu waxgalay oo aan weligiiba rikoodhka ka masmaxaynin oo aan qofka haddii ilaahay ka toobad aqla laga toobad aqbalaynin. qaabkaa maaha. waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waxa shaksiga ee laga gal kari waa dan ummadeed iyo waa kane. qiso kale aan tilmaamo, xaadithatu lifk, waa tii beenta la sheegay ee gurigii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi beenta laga sheegay iyo saxaabigii qaaliga ahaa ee safwaan ibnu lmucatal la odhan jiray. caaisha iyo safwaan baa waxaa la yidhi way isla hadheenoo xumay sameeyeen. dabeetana warkaasaa la faafiyey. qiyaadadii ummad oo nebi moxameda salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ayaa gurigiisii beenta intaa laga sheegay. beentaasi way faaftay oo waa la isgaadhsiiyey. markii hore munaafiqiin baa soo bilaabay, laakiin muslimiintii badh baa uun samaacuuna lilkadibkoodii iska rumaystay. wa fiikum samaacuuna lahum tukuwii alla tilmaamaya qaar baa noqdo warkoodii dacaayadkii markii laga badiyey run mooday. dabeetana warkii si caamu u faafay. ilaahayna subxaana wa tacaala mujtamacan inuu tarbiyeeyaa buu rabay. qur'aan markiiba lama soo dedejin le caaisha waxba may samayn, ama nebi maxamed ilaahay markiiba qur'aan ma soo dejin saaxadiisa beri yeelaya gurigiisa inaan waxba. bil baan qur'aan ka soo degin masaladaa. bil baa waxaad qiyaastaa magaaladii madiina oo hal biloo cir alle ka dhalatay warkaa un la wado oo cidda la dacaydaynaya ay nebi maxamed iyo gurigiisii tahay. abi bakar ridwaan ullaahi calayh oo ummadda tan nebi moxamed dabadeed ugu fadli badnaa oo ahaa nin aad u xanaaq kulul markuu xanaaqo. abi bakar wuxuu ahaa nin xanaaq kulul hadduu xanaaqo, laakiin wuxuu ahaa nin waqaaf lilxaqa oo aan xaqa dhaafin. abi bakarna mas'aladaasi qabsatay oo ah inantiisita wax laga sheegayo. intaa kadib yaa waxaan sheegay, dadka waxaan sheegay waxaa ka mid a mistax ibnu athath. mistax waa nin saxaabiya, waa nin badariya, ahlu badara, waa nin muhaajira min almuhaajiriin ka mid a, waa raggii ragga ahaa. laakiin nin kastoo ragga mar bay hoos martaa uun. nin kastoo ragga wa khayru lkhataa'ina tawaabin, mar bay hoos martaa. ninkaa badariga ah ee muhaajirka ee caynkaasiya waa hoos martayoo wuxuu ka mid noqday fikraddan dadkii faafiyey buu ka mid noqday. khata intaa leeg buu galay oo fikraddan raggii faafiyey ayuu ka mid noqday. mistax waa mid kale abi bakar qaraabuu la wadaagaa oo hooyadii mistax hooyadii iyo abi bakar baa habar wadaago laba walaalii kala dhaleen. marka abi bakar waalid buu u yihi, inantana caaisha iyo markaa mistax laba habar wadaagaa kala dhashay, qaraabay caaisha yihi. waa mar saddexaade mistax iyo hooyadiiba waxay ka mid yihiin dadka waa abi bakar masruufo. abi bakar nin muslim oo hantiilaa buu ahaan jiray. wuxuu kaloo ahaa muslimiinta dadka ugu waxbixin badan. waa kii abi cumar lahaa maalin baa is idhi la baratanoo waxaan is idhi maanta xoolaad haysataa intaad laba u kala qaybiso nuskeen
dabeetana waan imo abibakar waxaa la yidhi maxaad keentay xoolahaagiyo wixiiba buu yidhi carruurtii maxaad uga timi ilaah iyo rasuulkii buu yidhi maalintaasaan go'aansaday buu yidhi inaan ninkan gaadhayn oo dib ula baratabin aniguna nus baan meesha la socdaa buu leeyay isna wixiisiiba uu keenay marka wuxuu ahaa nin aad u deeq badan abibakar oo muslimiinta wax siiya mistax iyo hooyadiiba markaa isagaa biilin jiray abibakar markaa maxaa wada haysta waxaa wada haysta nin uu isagu quudiyo oo isagii haddana dacayadaynayay reerkii nin uu tol iyo qaraabo yihiinoo waalid uu yahay oo isagii dacayadaynaya nin muslimoo muhaajiroo badariya oo intaasoo dhan diin soo wada galeen oo haddana isaga reerkiisii sheegaya abibakar masaladii wuu qaadan kari waayey markii ilaahay qur-aan soo dejiyey la tilmaamay in arrinku saa yahay abibakar way ku adkaatay inuu liqo ninkan arrinkiisa ninka intaasoo dhan midnaba xeerin waayey islaamnimo igu soo dhaafay buu leeyahy ee tol iyo qaraabo soo dhaafay ee un wax siinaye waxsiintii soo dhaafay maxaad yeeli lahayd abubakar wax kale ku samayn maayo buu yidhi wax dambe ku siin maayo buu yidhi ina kala kaxee anigu shilin dambe oo aan leeyahay ku siin maayona saa inugu kala kaxee buu yidhi ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum baa ilaahay leeyay ilahay wuxuu leeyay waar ha cafiyaan oo ha ka jeestaan oo ha dhaafaan abubakar iyo cidda la mida baa la leeyay dadka cafiya oo sawti taa laygu sameeyey taa miyaan cafiyi karaya ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum tirsa adna imisumaad ilaahay gaf ka gashaa soo ma jeclid inaad bal lagu dhaafo imisumaad dembi gashay markaad tiriso kan waad gasho kan waad gasho kan waad gasho haddana yaa rabbi unbaad leedao gacmahaad kor u taagaysaa ma quusatid maalin walba waad qasaysaa laakiin haddana ilaahay ii dhaaf baad leeday ilaahay markaa wuxuu leeyay idinba waa jeceshinkaa iga gashaan ilaahay isagaa ku abuuray isagaa ku quudiya kownka isagaa iska leh nimcadaad haysato dhan isagaa iska leh halkaad u shukri naqi lahayd baad macsi ku samaysay wixii uu ku siiyo dhan haddana quusan mayna yaa rabbi baan leenahay oo waa baryaynaa ilahay wuxuu leeyay daan baanoo intaasoo dhan idin siiyey oo waxaasoo nimca idin siiyey ayaa rabtaan inaan kiina dhaafo idan alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum baa ilaahay yidhi cilladu waa tatan waliyacfuu baa la yidhi waxaas aad tirsanayso o dhan abibakarow waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum miyadan jeclayn baa ilaahay leeyay subxaana wa tacala in alla dembigiina dhaafo dabcan waa jecelyay abibakar markaasba wuxuu yidhi biilkiisiina ha la siiyo bes khalaas waa cafiyey biilkii uu siin jiray iyo wixii oo dhanna wuu ogolaaday yacni waxaa la rabaa haddii mujtamaca midba mid ka aargoosto fain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bihi waa jirtaa walaman sabara baa ilaahay yidhi inta dambe dadku iska indhamaraa lama akriyo walaman sabara wagafara inta dambe ka muhiimsan asalku waxa weeyaan qofku xaqiisii wuu leeyay laakiin ummadi ana iga goo kuma wada noolaato hadduu qof walo ummadda ka tirsan uu yidhaha ana intayda halay gooyo waxba soo hadhi maaya ummad marka la rabo inay ummad noqoto jirto waynay jiraan dad qalbi weyn leh oo ummaddan hogaaminayo wax cafiyi kara dad wax cafiyi kara oo wax dhaafi kara waynay jiraan dad wixii gaadhay aakhira u xisaabtamaya waynay jiraan inta aad leedahay waa ninkii waxaa berigaa igu sameynay dee waxba maad cafinin ila adiga wado una sheeganayeen waxay ahayd in la iscafiyo oo dadku ay dadka cafiyaan walidalik marka la rabo ummada inay jirto nebi maxamed maxaa lagu sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa la dilay waa la maagay waa la dhacay waa la boobay wax walba waa lagu sameeyey reer maka muxuu sameeyey waa uu yimi culamaai taarikh say sheegayaan abu cubayda suu sheegaya fatxu maka markuu ka warramayo wuxuu akhriyay buu yidhi weedhay ahayd nebigu laa tatriba calaykum alyawm yakfiru allahu lakum waa in kasta uu mursal yahay laakiin sanad xasan uu ku soo arooray oo mursala antum muطlaqaaguma asixin bay culamaai alxadiid yidhahaa laakiin waaqic اlamri wuxuu sheegaya inuu dadkii cafiyey dhowr qof buu yidhi haddaad ka heshaan sitaari lkacba xataa iyagoo ku duuduuban dila dhowrkii xataa afar meelahaas bay ahaayeen qaar kuwa caynkaa yidhi oo la wadaa loo keenay dabeetana wuxuu yidhi mar haddaa i keentay inta iska cafiya sii daaya kuwa caynkaa nebigu ku lahaa ayaa cuثmaan mid keenay cikrama bnu abi jahl baa la keenay waa iska dhaafay kuwa lahaa xataa iyagoo kacbada daaheeda haysta haddaa aragtaan dila markii loo keenay waa sii daayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh saa awgeed baa xadiidkii bukhaari waa kii tilmaamayey man taqama linafsihi abada nebi moxamed weligiiba wax isaga la yeelay inaanu aargudanin walidalik ba xadiidkii saxiixa ah waa kii sheegayay maxay iyadoo najid laga soo noqdo oo ciidamo muslimiin ay soo laabteen
ayaa meel la yimi dabeetana goor kulaylaa dhirtuunbaa lagu kala faafay qofba geed buu iska hoos fadhiistay oo iska hoos seexday nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh geed buu hoos jiifsaday isagoo geedkii iska hoos jiifa seeftiisiina wuxuu sudhay laan sare dabeetana nin reer baadiye ah baa yimi markuu yimina wuxuu soo nebigoo jiifa buu seeftiisii la soo degay galku kala baxay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh indhaha wuxuu kala qaaday uun nin seeftiisii haystoo la dul taagan oo le man yamnacnii minka yaa iga kaarabaya leh dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi allah ilaahay baa iga kaa celinaya waa ku celiye wuxuu yidhi man yamnacnii minka war yaa iga kaarabaya wuxuu yidhi allah 3 jeer buu ku celiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi intiiba wuxuu yidhi allah si ay ka noqotayba ninkii waa kurbaday unoo seeftii baa ka dhacday dabeetana nebiguna wuu qaatay dabeetana wuxuu yidhi man yamnacnii minka anna yaa iga kaarabi kun khayru aakhidin buu ku yidhi ku seef qaata ka u fiican noqo waa baryey isagoo nebiguna seeftii haysta kiina uu meesha fadhiyay saxaabadii u yimaadeen oo dhawaq iyo waxyaro maqlay markay u yimaadeen buu nebigu u sheegay uu yidhi ninka kani caynka ayaa caynkaas baa dhacdo saas buu igu sameeyey dabeetana markaan idhi aniga ilaahay baa kaa celinaya ilaahay seeftii buu ka riday markaan isla dul taagayna wuxuu yidhi waa iska cafiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxba ma ciqaabin ninkaa isku dayay inuu assassinate gareeyo ee dile ee cidlada ka helay ee seeftiisii qaatay rabay inuu madax ka jaro nebigu markuu ka xoog batay uu iska sii daayay oraska tag buu ku yidhi idan masalat alcaf wuxuu nebigu rabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu ummad dhiso walidalik baa ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaasi wallahu yuxibu almuxsiniin ilahay mu'miniinta markii la sifeynaya waxaa la yidhi marka hore waa kaadimiina alghayd waxay yidhahdaan culammadu waa 3 shay oo kala dambeeya kuwa cadhadooda qarsan kara kadmu lghayd inaad cadhadaada qarsato macnaheedu waxa weeyaan mar rabtid inaad dee kartid oo aad markaaba argoosatid cadhadaada haddaad xejin karto oo qarin kartid caqli aduu kugu dambeeyey waxay yidhaahdaan culammadu istiqraaq laxd alxaa qofku hadduu instantaneous noqdo bay dhahaan laxdada secondiska uu markaa joogo hadday maskaxdiisu ka jawaabayso wax dambeba ay arki kari weydo go-aan ma gaadhi karo saa daraaddeed nebigu waa kii tilmaamayey maxaa u taqaan ninka xoogga badan xadiiskii saxiixa maxay yidhahdeen markaa ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin bay ku yidhahdeen nebigu wuxuu ku yidhi ka xoogga badani waxa weeyaan maxay ninka naftiisa hanan kara markuu cadhoodo buu nebigu yidhi ninka markuu cadhoodo naftiisa hanan kara kaas baa nin xoog badana balaayaba waxay dhacdaa un dee nin cadhoodo isxejin kari waaye waxa aad dadka maqlayso sheekhuun baa lagu odhan doonaa hee markaad tidhahdo islaantii baan 3 ku furay anoo cadhaysan dee markaad cadhaysantay waxba lama furo yani markaad cadhaysantay go-aanba lama gaadhan nin raga haddaad tay weliga adigoo cadhaysan go-aan ha gaadhin wuxuu doonaba ha noqdo go-aan ba ha qaadan no judgment at all haddaad nin raga tahay adoo cadhaysan go-aan ha gaadhin wuxuu doonaya ha ahaado waxaad isku daydaa inaad go-aamadaada qaadato adigoo miyirka qaba adigoo aan waalayn cadhadu waa nooc min aljunuun adigoo miyir qaba inaad go-aamadaada qaadatid xataa haweenay haddaad rabto inaad furto iska tag adoo miyir qaba fur oan cadhaysanayn oo bala qabin go-aankaaga qaado walidalik ilaahay wuxuu leeyahay alkaadimiina alghayd kuwa cadhadooda xejin kara ee qarsan kara waalcaafiina can innaas baa la yidhi kadmi alghayd masale kaloo ka dambaysaa jirto oo istab ka sarreeya oo ah inaad dadkaba iska cafidid oo aad dhaaftid taa masale kasii sarraysaa jirta bay yidhaahdeen oo ilahay wuxuu yidhi wallahu yuxibu almuxsiniin inaad samafarsho inaad ixsaan samayso ixsaan samayntu waa maxay waxay yidhaahdaan ciqaab la geysto qof haddaad rabto inaad banishment ku samayso inaad qof ciqaabto qof dhib kuu geystay oo og inuu godob ah uu kaa hayo haddaad adigu weliba wax siiso abaal kale u gasho waxay yidhahdeen waa cuquubo bini aadam lagu ciqaabo ta ugu adag ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamay idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim kii xumaa kugu sameeyey maxaa la yidhi maxaad ku samaysaa sama u samee baa la yidhi oo natiijadu markaa maxay soo baxaysaa ninkii shalay dhibta kuu geystay ee maanta filayey inaad adna goosatid oo aad goosan kartid haddaad weliba adigu hadiyad siiso
dee ninkaasi waa hadduu inuu damiiruun qalbigiisa ku jiro waa xishoonaya dib dhinacaaga usoo eegi maayo maalin dambe inuu dhankaaga soo eegaa inuu kuu istaago markuu ku arko mooyaane inuu dhankaaga soo eega mar dambe lagama yaabo saa daraaddeed baa ilaahay yidhi kaasi wuxuu noqon doonaa maxay kaannahu waliyun xamiim baa ilahay yidhi mid qaraabo oo ku dhow oo xamiim ah kaas buu noqon doonaa baa alla leeyahy subxaana wa tacaala idan waxaan leenahay nebi yuusuf wuxuu adeegsaday laba masalo gurigii wuu isu keenay reerkii dib bay u dhismeen riyadiisii uu ku riyooday ilaahay waa u xaqiijiyey isagoo madaxa ayaa la keenay hooyiya aabbaba iyo wiilashii ay walaalahaayeen oo dhan dabeetana reer banu israa'iil guulaha loo tilmaamo waa halkay ka soo bilaabeen qoyskan baa reer banu israa'iil ka bilaabmeen waxay bilaabmeen iyagoo mucaziziina oo mukaramiina inay soo degaan masar qoyskan isagoo tabaqadii sare ee faraacinada ee waddanka xukumaysay isagoo ay martigeliyeen oo soo dhoweeyeen oo mucazis oo dad sharfana ayay soo degeen reer banu israa'iil taariikhdooda qur-aanku uu ka warramayo waa nasrigii koowaad ee usoo hoyda laakiin nasriga kani wuxuu keenay gurigan inuu yuusuf ururin karo ilaahayna sida mufasiriinta qaarkood ay ku fasirayaan alasbaat wa abnaa'i yacquub mufasiriinta qaar waxay qabaan 11 kalena in ilaahay markii dambe nebiye ka dhigay reerkiiba inuu nebi isugu wada baxay yacquub iyo yuusuf iyo walaaladii iyo wuxuu dhamiba inay ambiye noqdeen balaayadii hore waxay dhacday bay dhahdeen qabla nubuwa cidda qabta inay abnaa'i yacquub ambiye ahaayeen dhammaantood waxaan leenahay haddii la rabo marka qisatu yuusuf waxaan leenahay cinwaankeeda koowaad waa cifa cifadana almaawardi wuxuu ku tilmaamayaa alcifa can almaxaarim walcifa can alma'aasim baa la yidhahdaa buu yidhi waa laba nooc alcifa can almaxaarim buu leeyay waa farjiga iyo carabka oo aad ilaaliso oo aad maxaarimta ka ilaaliso alcifa can alma'aatimna waxay yidhaahdeen waa dulmiga inaad la jahrido iyo khiyaano inaad israarto oo qarsato oo aad iska ilaaliso nebiyullaahi yacquub nebiyullaahi yuusuf qisadiisu waxay caan ku tahay cifanimo waxaan leenahay hadduu nebi yuusuf gurigii ururiyey asaaliibtu maree qur-aanku inoo tilmaamaya waa tan cid kastoo usluubkan martaa waxaan leenahay guri kastoo baaba'a waa la ururin karaa ummad kasta oo lunta waa la ururin karaa walidaalika waxa koowaadee loo baahanya waxa weeyaan in dadka muslimiintii carabkooda ilaaliyaan carabkooda inay ilaaliyaan waxaa loo baahanya qofka muslimkii qalbigiisu inuu nadiif noqdo maxaa ka liita in toddobaad kasta lagugu soo celiyo camalka xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay muxuu tilmaamayay waa kii nebigu lahaa waxaa ummadda acmaasheeda waxaa la bandhigaa khamiis kasta iyo maxay isniin kasta ilaahay loo bandhigaa dabeetana qof kastoo aan ilaahay u shariig yeelayn ilaahay dembigiisa wuu soo dhaafaa laakiin labadii ishaystee dhexdooda shaxnaagu uu yaallay waxa uu xadiidka nebigu tilmaamayaa in la yidhaahdo kuwa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa in ilaahay yidhahdo labadaa iyaga iga celiya arrinkooda inta ay ka soo heshiinayaan war xataa acmaashaadu marfuuc noqon mayso ilaahay baa le labadaasi way kala fuqi waayeene celiya inta ay ka soo heshiinayaan waa acmaashii saalixee kale aad samaysay ayaa la leeyahay andiruu haadayni xataa yastalixa idan waxaan leenahay ummaddatan ururinteedu wuxuu ku ururmaysaa in qofka muslimkii uu cafiif noqdo carabkiisu dhowrsanaado oo dadka muslimiinta o dhan carabkaa uu ka dhowrsanaado caama iyo culamaba qof muslimo wax duraya inaanad isku dayin iyada culamo iyo dadkaasi inaad durto daah kuwa waa kuwa imaamu axmed tilmaamayay maxay luxuumi alculamaa masmuuma man shamaha marid waman akalaha maat waa weedh runtii laga hayay imaamu axmed culamada buu yidhi hilibkoodu waa sumaysan yihi ninka ursadaa buu yidhi waa bukoodaa kii dhadhamiyaana waa dhintaa buu leeyahy imaamu axmed idan muslimka o dhan inaad nabadgeliso badbaadiso oo uu carabkaaga ka badbaado ayaa muhima muslimiinta dhibta dhex taalla inaan carabka lagu sii balballaadhin haddaad rabto in heshiis yimaado sheegsheegaagu inaanu badanin iyo inay dadku mansilati alcafwi u gudbaan oo ah inuu qofka muslimkii dulqaad yeesho iyo ragannimadii waxay ku jirtaa inaad wax cafiyi karto
adba ilaahay baad ka rabtaa inuu ku cafiyo waxaad booshaaqladoo dhan allaad rabtaa inuu kaa dhaafo inaad adiguna ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu kuu cafiyo inaad ummadda muslimiinta cafido waxaan leenahay qisatu yuusuf markan waa qiso macaani badan ay ku jiraan laakiin caawa waxaan ku soo koobayaa qabasa ka mida qabasaadkaasi oo ah haddii ilaahay wakhti kale ina siiyo waa laga yaabaa inaynu jawaanib kale qisada ka eegno laakiin waxaan kusoo koobaynaa caawa guri burburay oo wixii burburiyay amraad alquluub ay ahaayeen oo dabeetana kala lumay oo in lunta in la adoonsado in iska tagta in indhabeesha iyo in xumo wali sii wada u qaybsamay shataat noqday oo dunida ku faafay dabeetana dib loo soo ururiyey waxa soo ururiyeyna uu yahay asaaliibtii uu adeegsaday bacda allahi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi yuusuf intaas baan kusoo koobaynaa wallahu aclamu billahi tawfiiq